wasaaradda qorshaynta qaranka Soomaaliland ayaa maanta waxay soo abaabushay kulan lagaga hadlayay qorshe sanadeedka shantii sano ee tagay waliba sidoo kale shanta sano ee soo socota. Kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan isku duwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka Awdal, maamulka gobolka, kan degmada Boorama iyo waliba sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Awdal. Waxa ugu horeyntii kulankaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay waxayna yiraahdeen inta kadib maanta waxaynu halan ku qabaynaa kulan hal maalin inoo socon doona oo ku saabsan qorshihii gobolka qorshihii qaranka NDP2 la yiraahdo oo runtii qarankeenu wuxuu leeyahay qorshihii labaad oo ka soo bilaabmay 2016 ilaa 2021 runtii waan soo dhaweynaynaa farxad bay noo tahay maanta in lagu qabto shirka dib u eegista ama qorshaynta shanta sano ee hadda soo socota aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay in halkan lagu qabto degmada Boorama isduwayaashana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay si hufan u soo diyaariyaan baahiyaadka jira waan idinka mahadnaqayaa maskaxda aad hoojiseen ee meediyaha ku soo ururiseen waxay noqonaysaa waxa aad imika idinku isla eegteen inay noqoto wax soo noqda oo ay qorshayso oo qaabayso wasaaradda qorshaynta qaranka kullay faahfaahin badan baa inoo dambaysa oo wasaaradii bay nala joogtaa oo inoo diyaarisay meetingkan ama kulankan qorshaha labaad lagu eegayo innaku waxaan diyaar u nahay inaan soo gudbino xogaha innakuna aan hayno iyo siday nala tahay kullay meetingkan doo socon doonaa maanta oo dhan imika ahaan waa furitaankii uun kullay agaasimaha guud oo igu horreeyeyna aad buu idigu iftiimiyey sidoo kale wasiirkuna iga dambeyn doonaa waad mahadsantihiin kasoo qaybgalkaas kasoo qayb gasheen. ugu dambeyntii waxa kulankaasi soo afmeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta qaranka Soomaaliland isla markaana faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo ujeedadiisa ayaa waxa uu yiri waxa weeyaan shirkan aynu maanta halkan isugu qabanaynaa waxa uu daaran yahay in aynu ka wada tashanno qorshayaashii hore loo soo qorsheeyay ee idinku qayb ka ahaydeen gobol iyo degmada in aynu isla eegno wixii qabsoomay wixii ay qabsoomi waayay iyo wixii aynu uga sii socon lahayn runtii shirku maanta intaas ayuu daaran yahay saad la socotaana waxa hadda aynu gudagalaynaa oo inagu soo dhow qorshihii qaranka ee saddexaad sidaas daraaddeed intaa gaadhin waa inaynu isla sii meeldhignaa wixii hore ee qorshaheenii hore qaranka wixii ka hirgalay iyo ka gobol ahaan aad ka taagantihiin ujeedadiisu waxay tahay inaynu ka tashanno qorshihii horumarinta qaranka ee diyaarintiisa qaybta ka ahaydeen marka baahiyihii iyo mudnaanihii hore u soo gudbiseen ayaynu haddii ilaahay ka dhigo isla falanqayn doonaa wax iska weydiin doonaa intaynu harsanayna waxba ka qabanin sidii wax looga qaban lahaa baynu insha Allah ka tashanayna haddii ilaahay ka dhigo waa Shucayb Maxamed kaan Shucayb Bigeys telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama.